بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي دي لهانتين بميل كستو دافها دونيدا آد كتشوكتان كسو دوادا سلان إيه صعب فران ميل كستو دافها دونيدا آد كمشاحسان أما آد كسوغانتهين ومركلة إيه برامج كيني فانكا إيه سوغانتا garoodi news barnaamijkeena fanka iyo suugaanta toddobaadkan waxa marti ku abwaanka da'da yar cabqariga aqliga iyo garashada soofaysanaya abwaan mubaarak maxamed careef oo toddobaadkan marti inagu ah barnaamijkeena fanka iyo suugaanta ee garoodi news marka hore kusoo dhawo mubaarak careef barnaamijka fanka iyo suugaanta ee garoodi news aad iyo aad baad mahadsan tahay waan ku dhawahay barnaamijkan garoodi sidoo kale waxaan mahadcelinayaa soo saaraha barnaamijkan maxamuud oo isku hawlay hawshan baaxadda leh aad baad mahadsan tahay waan dhawahay haddii aan guda galo barnaamijkeena fanka iyo suugaanta marka hore aynu ku iba furno barasho guud iyo dulka xaadis taariikh nololeedkaaga abwaan mubaarak careef waa kuma si aynu bulshada iyo inagu aynu wada jaan qaado mubaarak bal noo soo koob taariikh nololeedkaaga aad baad mahadsan tahay walaal sumada magaca garashadaydu waa mubaarak maxamed careef sidaad sheegtay 1994 baan ku dhashay xaafadda Goljan ee magaalada Hargeysa ku barbaaray kuwana qaaday ku kacaamay waxaan waxbarashada dugsiga hoose dhexe ka galay dugsiga hoose dhexe Sheekh Madar ama bulshada loo taqaano Singire sidoo kale waxaan waxbarashada dugsiga sare ka galay dugsiga sare ee 17 May oo kamid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay walow aanan weli jaamacad dhamaystiran oo intaan mid galay aan xidhan tahay waan baan ku rajoonahay inaan furo taariikh nololeedkayga oo kooban oo inta xillimaad dareentay mubaarak in aad leedahay hibo curineed ama hal abuurnimo ama abwaannimo haddii aan soo noqdo iba furka suugaantida ama goortii ugu horeysay ee suugaantiriyo waqti aan ku jiray dugsiga hoose dhexe baan isku diyay eedkii markaan hayna xalifo si may suurtagelin cid saxda ama wixii iga eegta markaan dugsiga sare u soo gudbay ayaa macallinkayga Soomaaligu Cabdi Xuseen Ismaaciil iga eegay wixina ii sheegay in suugaantan aan ilfimid tahay mid sax oo ka qayb gali kartaa saaxadda bulshada horteeda macallinkii iyo macallimiintii iyo ardayda iskuulka saasay igu dhiirigeliyeen kadib waxaan u soo ambabaxay inaan bulshada hor keeno ereyadaan ilfay 2013 bay ahayd markii ugu horeysay hees aan leeyahay muusik iyo laxan inta la saaro iyadoo la qaado lagu luuqeynaya ifka timaado marka taariikh nololeedkaygu intaas ku kooban yahay isagoo kooban aad baad mahadsan tahay walaal waa tahay abwaan mubaarak careef waxaad curisay geesh heesa ama heesa fara badan oo fanaaniin kala duwan oo door muuqda oo mug iyo miisaan dhadhan ku dhexla bulshada oo u dhadhamaysa oo xiise gelinaysa oo ay qaadaan fanaaniin fara badan iyaad ugu jeceshahay in had iyo jeer aad u dhiibto midhaha aad curisay maxaadse u sababeyn kartaa sababta aad ku xulatay
ama aad ku dooratay fanaankaasi? walal way jiraa fanaanin badan oo jecelahay inaan heesaha u dhiibo oo fariinta aan doonayo inay bulshada gaadhsiiyaan halkeeda gaadhsiinaya jili karayana fariinta iyo ereyadaas loo dhiibay lixanka iyo codkaas wada raacaya. nimcaan cabdiraxmaan xasan baa kamid ah, yurub maxamed cabdi baa kamid ah. kooxda xulka xidigaha geeska waan aaminsanahay inay yihiinba hantiilayaasha dhagaha ummadda soomaaliyeed ayaa jira. fanaanka faysal xawaasaa jira, fanaanin tira badan baa jira oo dhalinyaro ah oo aada soo kacaamaya. marka aad iyo aad bay u tira badan yihiin, taas baan aaminsanahay aad bay u tira badan yihiin. waa tahay, bal aynu soo qabanno heesaha uu curiyey abwaan mubaarig maxamed. abwaan mubaarig cariif keliya kuma koobna curinta heesaha, balse waxaa sidoo kale aad dareenkooda ku matashaa bulshada adigoo adeegsanaya maasooyin. bal nooga waran maasada qumaati socod la yidhaahdo, adiga oo noo sharaxaya waxyaabaha kuu kalifay iyo ujeedada ay xambaarsan tahay maasada qumaati socod. walaal maasada qumaati socod waxaan sameeyey 2015 bilihiisii dhexe. waa maase waayaha noloshuun ka hadlaysay, maase waayaha nolosheedu ka hadlaysay, haddana nafteedu la hadlaysay. nafteeduna baan la hadlayaa, nafteeduna baan wax farayaan leeyahay. tubta toosan waa taa, dariiqa wanaagsan waa kaa. saasoo kasi lamid ah walaalahayga kale ee nafteeda wanaagga la jecelahay, walaalahayga kale wanaagga la jecelahay maayaga laftigooda noo tilmaamaya wanaagga iyo tubta toosantay tahay. si khaas marka nafteeda la hadlaysa waxay lahayd bididka ugu horeeya waxay odhanaysaa qabyo weeye noloshiiha qawadi nasiibka, sadku ee boqorayaha saliiga qadarkana qabku yaalo darajiyo qurux kula muuqanin, asalkaba isqaadqaad raggu qiimo kuma leh, haysmoodin qeyrka inaad qaar wax dheer tahay. marka nafteydanu bay la hadlaysay leedahay. dee soomaalida waxay tiraahdaa qabku dumarku waa u sharaf, raggan waa u doqonnimo. marka nin qab iskilinaya ama kibraya ama isla weyn oo nin qeyrkii kale iskala ka weyn waa ayaa darooyin jirta baan aaminsanahay. marka nafteeda kala hadlayo lahaa qabku yaalo darajiyo qurux kula muuqanin, asalkaba isqaadqaad raggu qiimo kuma leh, haysmoodin qeyrka inaad qaar wax dheer tahay. marka naftan wax uga sheegayay, naftan ka wacdinayay. marka maansooyinka wax sheega ah
waxyaalaha waayaha nolosha ka jira ee la taaban karo ah haddii uu qofku kusii socdo allana kaga fogaanayo, waayo alla qof isla weeyo kibirle ma jecla, kibirka ilaahay ma jecla. marka ilaahay wuxuu neceb yahay aanu jeclaan waad kaga fogaanaysaa, bulshadaaduna inay kugu nacdo ayaad ku dhawaanaysaa. marka taasaan kala hadlay nafta iyo siyaabo kale oo kala duwan oo waxyaalaha xaqiiqo jira. marka maaso saasay ku hadlaysay ujeedadeeda u weynay anoo alifay markii hore. waxay leedahay markaa maasadu in qumaati sharaf yahay, qalqalloocni hoog yahay, ummaddaa qiraysee nafteeda ay taladan qabo. qabiyo weeye noloshii xaqawadii nasiibka ah, sadku eebba qorayo hasaliugan qadarka. qabkiyaanu darajiyo qurux kuula muuqanin, asalkaba isqaadqaad raggu qiimo kuma leh, ismoodin qayrka ah inaad qaar wax dheer tahay. waalidkaaga qalad iyo ha u celinin qowl adag iyo hadal uu qoonsado, carabkaaga qalooc iyo qowl beena ka ogow. qaadirkaa wax bixiyee qasnadaha rag leeyahay haquu daraynin abidkaa. qaadirkaa ku siinaye niman gaaja qabatiyo ha qadinin miskiinkana, ha ku qobin arsaaqda muuliheen kuu qoray meel aanay qabanayn. qiyaamaa dambeeyee quruxdiiyo haweenkuna iyay ku qaadin abidkaa, indhuhuna iyay qaban xalaal qaada mooyee xaaraan ha quudanin. qalbigaa ku degiyo kusheeceeda badiyo salaadana qallowdid. nimaan haysan qadhaciyo ninka qaniga ee ladan war ha kuu sinaadaan, ha qayixin ilkaha oo qosolkaaga meel dheer iyay ka qaban dhagaha kale. wejigaaga qamaxiyo ha ka dhigin qamaaceer, qalalaasadiido nabadana dhankeed qabo. dad hadduu isqoonsado garta qaad markaagoo ninka qaldan runta u sheeg, hana qarin wixii jira. ashaadada ninka qira iyo gaalka qaawani ha ku kala qallaadaan. howlaha qarankani rabo ha qabyeyni shaqadee adna qaba dhankaagoo quwadaada u hibiye. qabiil nin ku faanaa qayb kumala jannadee, qoloqolo iska ogow qowlkii ilaahay qumanoo rasuulkii sallallahu calayhi wasalam. axaadiista laga qoray akhri qur-aanka inta badan. haddaad qaado marinkaa ay qumaati kuu saxday ifka waad qubaysani, qaadirkaa ku gacan qaban maalinta qiyaamaha warxoonow rasuulkii qaybtiisiibaa qumaati socod. halkaas ayay kaga dhan tahay. abwaan mubaarag caref, waxaad moodaa dhaqangadi fara badan inuu jiro, gaar ahaan fanka soomaaliyeed. waxaa jira dhacdooyin fara badan oo xakame iyo xadhig weli loo la-yahay oo ceeb iyo nusqaanba ku ah fanka soomaaliyeed. inta badan waxaa sababay social media ama waxyaabahan casriga ah ee teknolojiyadda casriga. adiga awaan ahaan sidee ayaad u aragtaa heesaha iyo ereyada la kala xadayo? maxamudow, ereyada la kala xadayo ama suugaanta qof leeyahay ee qofka la sheeganayo waayadan dambe aad bay noogu soo badatay. weli waxay ku badan tahay social media. qofkii iminka hal abuurka social media wax ma soo dhigi karo. qof inta koobiyeysto ayuu nuudkiisa ku qoranaya, isagaba haddana dib usoo dhigaya, wuxuu qoranaya anigaa leh. waqtiyada hore ma jiri jirin. waqtiyada hore waxaa jiri jirtay waxaynaan lahayn kayd ama social media meelaha wax lagu ururiyo kale. marka labadayna dadka isku khaldaan, dadkii hore qofkaasi lahaa isku khaldaan mooyaane, laakiin ma jirto qof intuu adag sanimka taagan intuu axdo kuoranaya anigaa leh. way igu dhacday aniga laftigeygana ayaa kula hadlaya dhacday. hees baa jirta sakadil jira qaado, fanaanka sakadil jira cabdilaasim calaadiid baa la xameeyey oo heesaana bulshadu wada taqaanaa. nin baa intuu tv qaranka la soo istaagay kula anigaa leh oo ka been abuuray. cabdinaasir macalaacidiid uu leeyahay lixa kuwii saarena wuxuu ka hor cadaynaya uu leeyahay mubaarig baa heestan leh. waayaan darooyinka jiray kamid tahay indhaadayga iyo tuuganimada xatooyada. laakiin had iyo jeer ninka qofka wax xada iyo bulshada kama hana qaado. haddaad u fiirsato markasta bulshada ka gaabis. abwaanada waaweyn iyo dadka kale fanka ka hirgalla way iska ilaaliyaan. qofba kama garab noqdo, qiimeynba kama garab, waayo dee wuxuu leeyahay imaanu kusoo bixin. marka iyagana har seexin maayo aaminsiino. markasta bulshada ama fanka qofkaasi macna kuma dhex yeesho, laakiin waa afa jirta. sidee loo xakameyn karaa baad is leedahay tuuganimada sugaanta iyo sheegashada? waa afa u baahan in laga hortago, maxaa la iska qabsado si xatooyadaasi meesha uga baxdo, una dhowr sooladaan abwaanka ama hal abuurka dhawa ama qoraaga laftigiisa oo sheekada hawshan saameyn ku leedahay in meel looga soo wada jeegisto si qofkaas uga baxo meesha. walow aan aaminsanayn bayna meesha ka baxay uu soo laba kacalayo sanadba sanad ka dambeysa kor buu usoo kacayaada, laakiin in la tirtiro ayaan ku rajo weynahay walaal.
mubaarak cariif weli jacayl ma kugu dhacay? meeshaasi waxaa loo arkaa weli ma faraxsaanba weli ma naxday oo kale. jacaylku wuxuu ka mid yahay shucuuraha qofka aadmiga ah alla ku abuuray, sida farxadda iyo cadhada ugu abuuray, naxdinta iyo murugada ugu jirto ayuu jacaylkana u yahay dareen jira ama shucuur jirta oo rabbi ku abuuray qofka. kulli dee hal abuur iyo jacayl lama kala waayeen haabaan leeyahay. sida aad sheegtay jacayl safmara ayaa kugu dhacay. inta badan waxaa la yidhaahdaa abwaanku ama hal abuurku waxa uu ku ciilbaxaa suugaantiisa ama maasooyinka ama heesaha haato waxay doontaba ha ahaato. wax ma ka samaysa weli? dabcan dee kale way jiraysaa, heeso badan baa jira sida heesta Nimcaan Hilaac ama Waxbaa Qarsoonaayo kale. balse waxaan quraysh yahay ardaje xakiine qaloocshay sheekadu qisaya ablawe waxba qarsoona إلا قاطع عشق بلسي وحن قريش يحيي أرضجي حكيني القلوع شيشيك القسي يا بلوي موحبا ويموحبا موحبا قرصونا قلبي ما يحاول عيب قاضن ما كبر قيمة بطنه غير كيف وحداري يروح قيمة لاتي وما قد يهبه قلبي ما يحاول عيب قاضن ما كبر قيمة بطن وغير كيف وحداني يروح قيمة لاتي كما قد يهبه abwaan mubaarak cariif ma jirtaa qiso dhaba oo uu qof kula yimid oo aad ka samaysay maaso ama heeso? sideese ayay ku taalad qisadaasi? walaal way jirtaa dad badan markasta la soo xiriira aan wada sheekaysano saxaabta ma noqoto, laakiin cid khaas ah weli aan ka sameeyay ma jirto. kaasina waxa uu ahaa abwaanka daada yar ee cabqariga ah abwaan mubaarak maxamed cariif oo barnaamijkeena fanka iyo suugaanta iyo toddobaadkan inoogu marti ahaa. waxaanan uga mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga ah ee uuna siiyey. waad ku mahadsan tahay abwaan mubaarak cariif. intaasna aan kusoo gabagabayno barnaamijkeena fanka iyo suugaanta. tan iyo intaaynu ka kulmi doono toddobaadka dambe waa aniga oo maxamuud carab ah iyo bahda gaarood inuu soo idinkaga tegaya sidaa iyo nabad gelyo.